السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو ناسن داود الميل كستو مقال كي كستو قاريو وبهذه ودرس ميديا جروب iyo barnaamijkii ku caawiyay dalkaaga. Daawadayaal caawa waxa aanu joognaa magaalada Hargeysa degmada 26 Juun xaafadda Togdheer ama wadada Togdheer hodeel casriya oo si qurux badan loo qalabay oo doolar leedahay ayaanu joognaa bulshada ku dhaqan hoteelka ee joogta ee ku caawiynaysa iyo maamulka hoteelkaas ayaanu caawa la caawin doonaa daawadayaal inakeena daawadayaal iminka sida wada arkaysa waxaan soo galnay gudaha hoteelka halkii hore aan soo galnay waxay barxadda hore hoteelka iminka waxaan taagnay barxadda dhexe ee hoteelka waxaynu socon doonaa xagga hore gadaalna waa inuu noqon doonaa qolo walba oo caawinaysa waxaanu ka codsan doonaa inaan la caawino si barnaamijkeenu noogu hirgalo inuu wada socono daawadayaal waxaan iminka la soo fadhiistay waan ka codsaday inaan caawa la caawino barnaamijkeenu la caawiyaan ciyaartooydan garabkayga fadhida ninka waa Khadiir ninkaasina waa Mahdi oo markay shaqooyinkooda ka soo baxaan hoteelada qaar iska caawiyo oo soo nafisa Khadiir soo dhow bahdo daras media barnaamijka ka caawiyo dalka bismillaahir rahmaanir rahiim aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in asxaabtayadii aanu caawa halkan isku aragnay anagoo caawinayna alxamdulillaah waqtiyada qaar markaan shaqada ka soo baxnay habeenkii intaanaan xaafadda u hoyeen hoteelada qaar waan ku caawiynaa caawa hoteelkan isku nimid waa dhool dahable dhoola yare marka wallahi alxamdulillaah aniga saaxiibkay Mahdi iyo odayaashii iyo laftarkoodii oo dhan Biryaan salay oo meesha isku aragnay in aad baan ugu faraxsanahay caawa halkan ku kulanno أنا أدبر نقول فحصنا خضير ما هذي كسروا أدونا بعض ودرس ميديا برامج كعبة ذلك. السلام عليكم. ودنا سنتين ولا. مركها نشقين في قصة بحنو. أيام حاجة نسكع بينه ولا لذن. المجال ذي نهرمر برا بوكس كتلا بسنة ساعة. وأنا كعوينا مركها نشقين كنا بعضنا نسكرنا سما. أصحابنا ما نقولنا أصحابنا نيرك البدوين. أدو ما ستين أنا أدبر نقول فحصنا أنا عاوي ذيك لعوينه لعوينه بعضي كبدة سبورتس كبدة عكتا. قبل كم رود شيء عم مقالة هرقيسة أدو ما يستخدر أدو ما يستنى هجر أدو ما hablo goobta ku caawinay oo qacad sanana la caawino hablaha aynu mid dul istaagi doonaan magacyadooda weydiin doonaa walaal magacaaga adigana marka walaaltiin idinka nashaadiina waa nashaadiya amaal okay adigana walaal marwa Amina Xuseen Maxamed marka waxaynu caawa aad ku caawinayseen oo na soo jiidaysay sidee sheekada aad u wadtaan aad iskaga sheegsan safartiin isugu dhiibaysaan waxaanu fadhinaa hotel doolar oo ka caawinayno marka waxaad naga warantaan bal xagga degantiin iyo hotelkan iyo caawiskan iyo sheekada iyo wax nala wadaagi kartaan marka mid kamid ah dad nala wadaagto amba sheekada caawin ugu caawin kartaa amba sheekooyinka aad ku sheegsanaysaa nala wadaagto ما waxaan maanta u nimid horta inaan dhageysanay araweelo sheeko saabsan araweelo waxaan moodinaa anagu in buug la qoray araweelo ah oo la soo bandhigay laakiin ma ahayn wax la iska araweelo ma jirtay mise ma jirin taasoo laga doodaya doontaas marka halkan goobtan aad u timaadeen in sheekada iska jirto in araweelo buug la soo bandhigay aan mooday markaas laakiin waxa la noqotay in isku haysto araweelo ma jirtay ma jirin darteed oo laga soo baxnay kama soo baxnay laakiin joogii aan rabnay halka ma ka helay sarka baan soo helay marka aad anagu nagu faraxsanayn caawiskiina ay kala qayb qaadano iminka waxaan u soo gudbi doonaa Amina caawa halkan waxa u timaadeen in buug araweelo lagu soo bandhigay ayaad moodayseen markii dambana sida ay nashaad noo sheegtay muran badan baa imiyo araweelo in jiritaankeedii iyo inaanay jirin bal isku qabsay adoo shakhsiyan araweelo inay jirto iyo inaanay jirin ka wada aaminsan way jirtaa ilaa intii la yaraan araweelo lagu soo jeeday maxay sheekeyn jirmaan markaan horta waxaan aaminsan in jirto gabar Soomaaliyeed ah way haydnaa maxay magaceedii horta waxaan kula iska haystaa ma jirtaa ma jirto ma Soomaaliyeed bay iska shaqaan ma Soomaaliyeed bay samaaha soo markaan waxaan aaminsan gabar Soomaaliyeed oo jirta oo dumarku u soo doodi jirtay oo xaqoodii
doo soo dhicin rabtin aad u maasan tahay aamin iminkana waxaynu booqan doonaa hoteelka qaybtiisa sare hoteelku intan aynu hoose aynu aragnay kuma koobnay qayb sare uu leeyahay qaybtaas sare ayaynu arki doonaa insha Allah dawadayaal hoteelka bilicdiisa iyo quruxdiisa aynu arkayno kamida soo kordhiyay bilicda caasimadda iyo quruxda caasimadda kor u sii qaaday waxaan la fadhinaa mulkiiliisa oo ah Maxamed Maxamuud Doolayare Maxamed ku soo dhaw barnaamijka ku caawiya dalkaaga oo Daras Media ugu tala gashay inay kula caawiyso dadweynaheeda iyo mulkiilayaasha hoteelada iyo quruxda iyo bilicda soo kordhay iyo horumarka wadanka ay kula caawiyso dadkeeda aad iyo aad baan wanaagsantahay Maxamed waxaan ku weydiinayaa hoteelka iyo qaybuhu ka kooban yahay bal aynu u sharaxno dadweynaha walaal wuxuu ka kooban Maxamed hoteelku qaybo badan uu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay cunto waxa ku jirta hurda ku jirta waxa ku jirta hoolashiiba ku jira oo kanaan fadhinaa kamid ah aroosyadii meheradii muxuu conference waxa lagu qabsanay inta baan haynaa meel cafeteria ku jirta laftigeedu marka farbadin hawlo badan aan qabanaa adeegyo badan aan qabanaa bulshada صح maxamed aad baan ugu faraxsanahay horumarka soo kordhay ee aad soo kordhisay adiga iyo teamka kula shaqeeyaba iyo dadweynuhuna waxa ka marxaati yihiin bilicda iyo horumarka wadanka maxaad markaa fariinta dadweynaha u diraysaa maxay noqonaysaa maadaama uu tahay mulkiiliye hoteelka fariinta dadweynaha u diray waxa weeyaan in muxuu ahaa hoteelkayga soo booqdaan oo hadii xalfada ku qabsanayaan hadii meher noqoto hadii aroos noqoto iyo hadii u baahnaadaan meel ay ku cunteeyaan oo bilicna leh cunto wanaagsan oo tayo leh qiimuhu raali gelinayo inta baan hayna hadii ilaahay raad insha Allah bidlaakin dadka waxa leeyahay inay soo booqdaan insha Allah haye maxamed aad baan maastad markaa macaan waqtiga qaaliga noorta dawadayaal iminkana waxaan u soo galnay mutuleel ku caawinayaan Cabdi Casiis oo dhinaca midig fadhiya iyo Mustafa dhinaca madax fadhiya oo iyagana caawiskan caawa kula qaadan doona hotel Doolayare ee magaalada Hargeysa Cabdi Casiis oo barnaamijka ku caawiya dalkaaga maxamed aad iyo aad u mahadsantahay magacayga Cabdi Casiis Maxamed Axmed oo deegaan xaafadda shacabka aad baan ugu faraxsanahay barnaamijkeena ku caawiya dalkaaga aad baan ugu faraxsanahay kan noqdo qayb kamid ah aad baan maastacdi sanuun aad baan ugu faraxsanahay caawinayna kula kulano oo kula caawino hotel Doolayare magaalada Hargeysa Mustafa ayaan iminka ugu gudbinaa Mustafa ku soo dhaw barnaamijka ku caawiya dalkaaga ku dhaw markay ilaahay aniga Mustafa magaalada Hargeysa degan وان عوض في عام أنا سيرو عام بحذا ضايع ضد قبل القرية مصطفى نانستي مصطفى بحوه لكن هو شيء يلقى ومصطفى واحد قاعد صرنا نجد زوينه بالعاوة ما داموا أنا بيلعبون إذا كنت زوينه نجي نلعبينيه هنا هذا شيء كم ذا شيء كين كي عاوة شيء سنة بس شيء كين كليات زوينها أنا جد زوينها من الذات تصور في قد جوجو قاعد عادي قلت حالة النوع ده وعمل كتير مع المجال الجيسو شو يجوا قاد في أي حاجة شفنا ما شاء الله رفضون قبل فيديو قربين قاعدين يلا سكوت من بالهاج وكما تون قاعدين صح ميديا هنا قاعد عادي قربين قاعدين التيفي كانوا يسوون اوكي هذا ما استفدنا وناد ونوقف احسن من ذيك يلعبينه waxaanu ku weydiin doonaa xaggii imika kale teknolojiyadii iyo horumarka internetka iyo waxa waddanka horumarka lagu gaaray xagga hoteelada iyo caweynta iyo qalabeynta iyo waxyaabahan soo kordhiyay barka war aad way socotaa imika wala shaqaaleyn oo isoo karna caalamka dal badan oo channel lana hay waan qoranaa xagga teknolojiyada waan ka jabanaynaa صح وخربنا قالنا الحمد لله ما شاء الله ولي انتهى كبدنا وكرتين انه سيجارنا ادو مع صوت مصطفى عبد العزيز ايا برنامج كينن غبغبوها داود يرسنا هربا ku sheegay barnaamijkan waa barnaamij ay bahda Daras Media ugu tala gashay in ay dadweynaha reer Soomaaliland ay ku dhaqan gobolada Soomaaliland oo dhan insha Allah intii awoodoodu tahay aynu gaarnaan kula caawino goobaha ay ku caawinayaan sida hoteelada waaweyn iyo kuwa dhexe iyo kuwa yaryarba oo kalbo gobol iyo kalbo hotel kula caawin doona dadweynaheena intaan barnaamijka ku caawiyay mid la mid ah ku kulmi doona daawadayaal waa bahda Daras Media aniga Maxamed Cumar Dawaya muuqaalka qurux badan oo inoo duubay Maxamed Soomaali iyo kamarada labaad inoo duubay Cabdi Xuseen Xaashi Gaas waxaan dhamaantood ku dhaafnaa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa